بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحرا قناتك إنها شعبك آدي أدبان دي سلامي خير بدن بايدين رجينا إياه ميل والبو أدون كاد كجوكتان أنت كدب مدرر بينكم كلام غنين قناتك waxaynu eegaynaa maantay arrintan la isdhex wado oo xisbiyada mucaaradka dowladda federaalka oo shirar uga socday magaalada muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo inay shirarkaasi uu ka soo qaybgelin madaxweynaha hore Farmaajo sidaas la mid ah madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland waxaynu eegaynaa shirkan mucaaradka isugu yimaadeen ma noqon doonaa mid najaxaya mise wuxuu noqon doonaa mid iska fashilma waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ka socday magaalada muqdisho kaasoo cabsi laga qabo in isku dhacyo ay ka yimaad dhex maraan ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada ilaalada u ah mucaaradka sida madaxweyne Sheekh Shariif oo kale ra'iisul wasaarayaashii hore oo kale ciidamo ilaalo ah ay wataan marka halkaas waxaa jira walwal laga muujinayay kuma fogaanino waana wax dhici kara waana wax baaqan kara inaynu fahanno guulaysashada arrimaha mucaaradka ay wadaan haddeer oo salka ay ka duulayaan uu yahay in la bedelo in dastuurkii la bedelay sidiisii lagu soo celiyo madaxweyne xasanna uu ka kaftoomo arrintaas waa arrin adag madaxweynuhu musharaxnimadiisa iyo soo noqoshadiisa waxay ku salaysan tahay dastuurkii uu bedelay laakiin haddii dastuurka sidaa lagu soo celiyo madaxweynaha wuu ka baxayaa meesha rabitaankiisii iyo tartankiisii oo laba jeer ayuu soo noqday madaxweyne dastuurkeennii horena saasaa ku qoran mar saddexaad madaxweynaha inuusan tartan geli doonin marka dadka siyaasadaha falanqeeyaha hore waxay yiraahdeen madaxweynuhu wuxuu tolanayaa shaar isaga sayskiisa ah marka arrintaas aad bay u adag tahay marka maxaa dhici doona hadduusan madaxweynaha uu barnaamijka qaadan waayo oo uu ka noqon waayo mucaaradka maxay yeeli doonaan arrinkaa waxaynu ogaan karnaa muddo 2 bilood ah baynu u baahannahay waxaynu ogaanaynaa habka madaxweyne xasan uu wax u process gareeyo ciidamada la filayo inay ka imaanaya Turkiga isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa ay waddanka ay ka sameeyaan sidaas si la mid ah isbeddelka ay sameeyaan mucaaradka iyo saameynta ay ku yeeshaan shacabka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada markaas ayaynu ogaan doonaa halka ay ku jihaysan tahay siyaasadda Soomaaliyeed waxaan u baahannahay 2 bilood aad baan idin salaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.